waxaan joognaa waa xeebtii Luqaya ayaa joognaa oo lagu calay masaarayay maartay Sultaan Abshir Maxamed Tacaale waxa weeyaan kalluunka aad arkaysaan hadda si dhib yar baa halka laga soo saaray oo waxa weeyaan yaana waa halka ugu dhow laga soo qaaday marka waxa weeyaan maadaama waxa soo qaaday waxaan dii sheegay waxa burtay waxa weeyaan dawlado kale Yaman iyo reer galbeedka iyo maraakiib baad dadka inaguna waa ka carradan waxba kama qabno waxa loo baahan yahay marka inaan dekadana dhisano oo kalluumaysiga la soo baxno oo dekada wax ka soo dejisano oo nolosheena badda ku xidhna ayaa loo baahan yahay waxay yiraahdaan culimada islaamka ee laga bartay ilbaxnimada casriga ee maanta ninka badaya bad leh ee ka gaajooday waa dulli bay yiraahdaan marka waxaan dulli baan wadanaa marka waa inaan had iyo jeer la soo baxnaa xoolaheenaas oon cunaa oo maartaan aan xooleenana ku nasana baad inoo jooga maartay biriga inoo jooga nicmada ma cunaa marka waxaan doonayaa haddii la dhado mustaqbalka inay dadku ku soo hirtaan Luqaya iyo badeeda dekadina aan dhisno la keeno qalabkii maartaan badda laga shaqaysan lahaa oo dhan waxa soo dhan baa loo baahan yahay cid walba waxa la doon lacagteeda inay hurto lacagteeda inay hurto ayaa maartaan loo baahan yahay sideeda lagu cuni karayaa maartaan waa ka arkaysaa وديك oday dhaqameedka dhalinyarada indeer garadka dhammaan maanta uu yimid على masaarkaaga iyo adigaba waxaan ku soo dhaweynaynaa qaybtii wax soo saarka ee degmada ayaanu kugu soo dhaweynaynaa Soomaalidu waxay ku raamaadaa nin badla gaaja ma disho ruwayaan wadinka gacanta ku haya waan iska soo kala hayaa subaxii taana waan cunayaa taana khusaarka siisaya waxay iga maqan خيرات يومين دegmada Luqaya loogu burtinayo ama gobolka Awdalba halka gobolka Sanaag fooxa iyo beeyada ay iska tartamayaan khayraadka ugu muhiimsan halkana waa kalluunka waxaan filayaa haddii la yiraahdo ilaa dadka oogada degan ee reer Awdal ku aftirsadaa inay iman doonaan insha Allah dadkana waxaan ku weenayaa sidaa barsoorka ballan qaaday lunta kalluunka in la barto oo laga cagar baxo si aynu khayraadka waddankeena aynu ugu على مساركيس كنا من مدوينين ميل Luqaya iyo dad kala badan oo ka yimid Soomaaliya dhammaan Djibouti America Asia oo ku dhan degmada Luqaya oo ku calay masaaraysa sultaanka beeraha baawar muuse yaa maanta ay ku soo gabagabootay alfadii ugu dambeysay iyaan ku jirnaa aniga oo sheekh badda ana xalay badda ka waran maxaa kalluunka ka soo bixiya xaaladeeda badda ka bixi ka warbixin wallahi badda kalluunka aad baan ugu gurnaa mar deel waqti kulina laakiin markii aan helno waan gurnaa la shashka badda ka shaqeynteen leeg bileegi la tuman laash weeleegi laakiin waa iska fadhiyaan qaar mashiin ku xumaaday la taageero way iska jiraan adoo iska tamam maalintii waad baxdiin la shashad ka haysatiin waxaad doonaysaa inaad kalluun soo jilaabataan maalintii inteen leego kalluun ayaa badda ka soo baxaa maad ka soo saartiin ana in ka soo 100 kilo maalin soo saari kar laakiin wallahi wax baraflaan iyo xayir dibta marka ku saarhaan u baan u keenay magaalada wax macaamiil oo goorma geynaa Hargeysa geynaa ama meel dheer oo kale ka wadin maaha kalluunka soo saartaan marka ma degmada isticmaasha mise dhulka kale aad u iibgeysana dhulaad ku xidhantiin baa jirta markii aan fursad lana qaadna marka kalena ay magaalada iska marka in qurba joogta in deegaankan u dhalatay isla markaana jecelina dekada ama ay badooda ay maal gashadaan adu maxaad talahaan u soo jeedin leedahay ama aad ka codsan lahayd wallahi marka ay kasto shirkad maalin ay tahay dumitay ma qowlbiyo oo shirkadii magaceega la yiraahdo Luqaya Seafood oo imika qalaha ku jirto iyo ugu horeysay marka waxaan oran lahaa kuwan kale imika ba imanaya amba waxban deeman doona amba maqlaya amba wax ku soo darsanaya qurba joogta amba Soomaaliland ba jooga waxaan oran lahaa ku dayda shirkadda Seafood Company Luqaya oo imika bilaabmay bishii labaad ka bilaabatay oo imika laga dhisay dhagaxeega meel dhow kala dhigay taana loo noogama horeyso waxa kaloo maanta farxad weyn ah inay tahay maalintii ugu horeysay
aan imaado Lughaya aan haddana weliba joogo badda geerkeedii maanta taaganahay oo aan hadda arkaysana kalluunkii gacanta ku hayay oo nimcooyinka Ilaahay nagu banaystay maanta waxa weeye ku dhex jira biyaheenaas iyo baddeena ku dhex jira aan la soo koobi karin maanta ayaan iyadana leeyahay waa in bulshadu iyadoo isu duuban oo mida oo miyir qabta oo fikir horumarineed oo hiigsanaysa himilo fog oo aan dhaweyn aan ahayn arag waxaan isku qabanayso laakiin aan mustaqbal iyo wax fog hiigsanaysa inuu Ilaahay ummadda ka dhigo inoona soo jeediyo waa sanadkii horumarka waa sanadkii wada qabsiga waa sanadkii aan soo jeedinay xeebta sidaas salaadiintuba ka dhawaaqisay halkan madaxweyne ku-xigeenkii oo isagana runtii suudaanka loo keenay salaan loo keenay isagana halkan aad uga salaamayno ugaaskii oo isagana maanta halkan biyaynu calaamisaarka ku jiro isaguna salaan soo gudbiyey suudaanka iyo salaadiintiisa kalaba aad iyo aad baan ugu hambaliynayaa bulshada reer Lughaya iyo dhammaanba beelweynta Maxamed Case ama samaan bahabar muus maanta على مسارة السلطان عبد محمد دعالي إلهي وحلنا هيدي قابل مريض ثلاث ولا ستين لنا شقينا دينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تفرصنا هاي نوع كيف يدينا أو تديهنا نأتوا أي كيسان على مسارة السلطان كان صبر دقني إن أي شيء دقمنا لا شش لأن يبغى الحفظ يقاني أي بطان يومك لكن هاي سوى فاسيلتيا مشينا دو بركعون يقووا جيو نجي هم قوا عن جعلها إن ما دام أنا عايز وزارتك المسجد على الجو وزارتنا يجيب بدل حق الشباقي وحين السيسي أما بندق يا كمان سومالان يعني حكومة ده هي الشعبي سومالان والجو هي واحد الله وحي كلمات أي أبوك يا أي نقص عاونان تجدات للهيا لكن حكلوا ويسنا سي أي قال أنت بقولك جالسة أي لا شك أنت بدك مني أما المكينة لا يجري هذا دقائق هلا يو دولة دلالة يو إن سيدي تقسيم بدن دلوه لو قبوجية قدام قبوجيه يوم جبيه هذه الدمات في حبي وحياة تقلقلك وصدق أنه اللي كما يسا بالصحافة أن يوقفهم باليين يجب ولاك ينوفي شيء بقى واحد ما لنا هاي سومالا نحن لا ما ممكن حكومة بدعوين نحن لا بدعوين كثير صدق القولة وحنا يا هاي وإننا وحي كلماتي كذا جماعان عدة نوع أروح حسابات أي نرصو نوفي عندي هنا نوفي أركان وأنا سلامتي إنسان إلا على الظالمين وحكلا فرحان وين نوع إن حاضرني أو أن كسر قيب قلي وديار جروجا لما ضبط الدجاجة Lughaya degan sida ay ugu diyaar garoobeen inay soo dhaweeyaan cid kasta oo maaragtay la garab taagan ama daraynaysa wadankan inay maaragtay dekedan dhisto waxna ka qabato runtii tacmiirka ama maaragtay camiraadda beledada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amaanay dadka markay wadankooda camiraan ay dhisaan in maaragtay ay tahay wax qiimo iyo tixgelin leh tacmiirkana Ilaahay baa ku amaanay dadka wadanka arlada camiraan marka waxaan leeyahay dadka wadankan ونسبة شيئا إلهي سبحانه وتعالى ومكنسية ومسؤولية داسية إنay wadankooga camiraan oo ay wax ka qabsadaan gudahiya dibadba qaybkoodna la tartamaan adduunyada tanaafus baa loogu jira xayawaanka ayaa tanaafus ku jira oo midba mid ayuu cunaya marka waxa weeyaan inta aan lagu cunin inta aan adiga laga tirin arlada inaad adigu wax jira noqoto oo aad muuqato oo aad wadankaaga camirto oo aad ku hamido sida horumar wadankaaga u gaarsin lahayd المدى باقة يندري فرحان وين من وطهي وكا وحويان واجهداس ذهبت مودامات كدي Lughaya مستقبل كنا نقول له هي ماشي مانتنا واضح تاريخ ذا قريت دون تقف كي يدرس ناسك بارك الحين كان بيان كان ومارك دريا الله يعيد والله كسر قادته هذا المقصد